بعد تحية الإسلام إلهي بمهد لما أنت إسكال سبحانه وتعالى إن قد قد إسلام مدشان قيمها بدنا إنه وكل مية وحنو مهد علينا يا دلّد إسحرك هوين كالنجاد ورنتي يدو سوق بنقابسي كلن كان أينو ما أنت فردينه يغار كله إن شاء الله تعالى لقد فريدونه إن دقمة عينبا سبحان ساكا هدي لهاي هذا وحفر حد إيه قبلها قبل كسول رنتي كسوق قيب قلي برنامج كان قيمها بدن socon doona labada casho isla markaana lagu lafagurayo haweenku qaabka ay siyaasadda uga qayb noqonayaan ama nooca ay u kaambeen garaynayaan iyo waxyaabaha laga doonayo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay ku soo dhawaada gobolka Saraar gaar ahaan magaalada madaxda Caynaba waa gobolkiini iyo degmadiini waxaan idin leeyahay aad baan idin soo dhaweynina han waanu mahad celinayaa gabdhaha saddexda xisbi qaran ee madashan isugu yimi ee iyagu raba inay hankooda ka dhawaajiyaan ama ay meel gaarsiiyaan run ahaantii haweenku waxay ka mid yihiin dadka ugu faraha badan bulshada reer Soomaaliland marka loo eego cilcilis ahaan haddana waxaynu nahay nambarka ugu yar marka ay noqoto tamo waa maxay sababtu ma isweydiiyeen haweenku wuxuu yidhi maanaan rooninoo ruuga lay hayaa mise ruuxaddii baan run sheegaynay ma innagaan marka hore tartankeennu aanu iyo ka hankeennu aanu run ahayn oo weynan ka xaqiiqo sheegayn mise waxbaa inaga qaldan waxaan qabaa inan kastaaba way jeceshahay inay ka mid noqoto mas-uuliyiinta qaranka hankeeduna wuu gaarsiisan yahay waayo inantu waxay la mid tahay inanka hooyo aabba wada dhalay 9 bilood bay ku wada dhasheen way jirtaa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku kala fadilay waxaasi waxay ka mid yihiin marka diiniyan loo noqonayo ama dhaxal la doonayo balse dimuqraadiyadu waa wax dastuuriya oo ka baxsan xuquuqda uu Eebbe subxaanahu wa ta'ala uu jideeyay ta rabbi kama fogaa oo wax ka hor imanaya maaha ama liddi kuma aha waayo inantu inay shaqayso ma jirto aayad ku maanacaysa oo ka reebaysa xadiis uu rasuulku kaga reebayana kaleey salaatu wasalaam ma jiro hase yeeshee waxa xun ayaa inaga reeban inantu waa inay noqotaa iyadoo han siyaasadeed leh iyadoo ka run sheegaysa inay haddana dhowrsoon tahay oo wixii Ilaahay faray ay fuliso wixii uu ka reebayna ay ka reebto iyadoo diinteena suuban dhaqankeeda iyo sunnii rasuulka kaleey salaatu wasalaam raacaysa sida aawadeed waxaan leeyahay wax marka ugu horeysa inanta laga doonaya inay kalsooni nafteeda alla timaado mar labaadka waa inaanay u qaadanin inay tahay doorashadu wax ay habluhu run u qaadanayaan inay mar haday inay taaganta iska wada codeeyaan waa wax xidhasho u baahan waa wax u baahan inay u guurayso oo u galab carowdo waa wax u baahan inay nooca loo sabanayo qofka ama loo soo dhaweysanayo inay inantu fahanto sida aawadeed waxaan leeyahay barnaamijkani wuxuu idinka kabayaa waxyaabo fara badan waxaan jecelahay inaad ka faa'iideysataan biidmillaahi tacaala waxaan qirayaa inay u baahan yihiin golayaasha inay ka mid noqdaan haweenku waayo waxay ugu baahan yihiin haweenku waa nolosha bini'aadanka ayay tiir dhaxaad ka yihiin markaan taa leeyahay qof kastaaba wuxuu ka yimi hooyadu waa barbaariyaha dhammaan ibni aadanka oo dhan meeshay doonaanba ha joogaane mar labaadka waxay noqotaa oori waxay markaana u tababar qaadataa ama ay tareerin garaysaa inta gurigeeda ku nool ee uu ka mid yahay ama ugu horeeya saygeedu ayay dhisidiisa iyo tiirintiisa gashaa mar labaadka waa walaal waxay isgarab taagtaa walaalkeed si uu u noqdo mid isagu kaalinta uu doonayo oo dhan si giigsan oo dhammaystiran uga qayb qaata sida aawadeed maadaama oo ay iyadu nolosha oo dhan haweenku gacanta ku hayaan waxa loo baahan yahay inay miiska wax lagu qorsheynayo ay fadhiyaan haweenku maadaama ay yihiin dadka ugu badan bulshadeena waxay u baahan yihiin cid ka turjunta baahidooda maxay u baahan yihiin ma waxay rabaan aqoonta ma waxay rabaan caafimaadka ma amnigay rabaan waa ay qofka qiimeyn kara xadiis baa jiray sheegaya waqtigii nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa nin asxaabigii iyadoo asxaabtu fadhido micraajkii nabigu waqtigii uu dhacay la dheelmiyay ayaa waxa fadhiyay nin asxaabta kamida rasuulku wuxuu tujiyay salawaatullaahi wasalaamu calayhi salaadii cishe ayuu tujiyay markuu tujiyay salaadii subaxna isaga tujiyay isla markaana wuxuu uga waramay safarkii dheeraa
ee alla subxaanahu wa tacaala uu ku geeyey samada oo dhan ee uu jannooyinka iyo cadaabaha intaba uu ku soo arkay ninkii asxaabiga ahaa calooshu iska yidhi waryaadhahe waxaasoo dhammi miyay suurtogeli karaan iga walla maantuu badina geliyey dabadeedna wuu baxay oo wuu iska tegey salaaddii casar buu tukaday reerkiisii oo miyiga ah buu aaday wuxuu tegey meel balliya oo uu damcay inuu isku sii yara qubaysto markuu balligii galay ilaahay qadarkiisu waa kun fayakum weeyaanoo inta biriqsigu isku soo socdo labadaada baal ayaa ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan oo dhan rogi kara isla markaana adduunyo kale quwaddiisa ku samayn kara subxaana wa tacaala isla intii uu biyaha ku jiray ninkii wuxuu noqday qof dumara ayuu noqday dharkii meesha uu dhigtayna dhar dumar bay noqdeen isla waqtigii uu soo baxay ee uu isarkay dee wuxuu bedeli karaa ma jiro quluubtiisa oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala allahuma qalab quluub baa layidhi sabad qalbi calaa diin ilaahay isagaa quluubta gedgediya isla markiiba waxa u yimi nin sheekaysi baa laysla bilaabay waanu guursaday ninkii muddo yaroo qadara ayuu maqnaa wuxuu dhalay 2 carruura dib buu u soo laabtay wuxuu yimi balliga laftigiisii ayuu yimi wuxuu damcay isagoo gabadhoo awr doonaya inuu balligiisii haddana maantana biyo yar iskaga rogo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay ninnimadiisii ayuu dib ugu soo celiyey maryihii buu u soo baxay waa maryihii uu shalay waayey wakhtiguna waa shalay iyo maanta wakhti dheerba maaha dharkiisii buu xidhay wuxuu tegey wuxuu ka qayb galay maxaan sheegaa maqaamkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu ka qayb galay salaadii subax oo uu tegi rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa mid ilaahay subxaana wa tacaala uu u waxyoodo wax walbana la socda marka waxyigaa loogu daray sidii ay waxu dhaceen maxaadaruu ka galay markii salaada subax la tukaday wuxuu yidhi war keebaa garanaya xaqa aabbaha iyo ka hooyada ka culus keebaa garanayo inoo sheegaya macnaata waxa fadhiya ninkii 2 carruura soo dhalay oo isagu aabbayaasha iminkana ka mida isagaa kacay oo ka warramay waxaan u sheegay inuu xaqa hooyadu culus yahay waxaan ka wadaa waxa weeyaan qofka bini'aadanka ahi waxaa loo baahan yahay in qof baahidiisa garanaya uu goobta fadhiyo haddii niman midhan isu yimaadaan oo la yidhahdo ha la qaybiyo wax oo la yidhahdo war maxaynu samaynaa waxa laga yaabaa inay iskuullo midhan ka wada dhigaan waxa laga yaabaa goobtaa inay haween badani ku nool yihiin ay ugana faa'iido badan tahay in la helo MCH hooyada iyo dhallaanka la xidhiidha ama badbaadiya hooyada iyo ilmaheedaba waxa laga yaabaa inay ka fekeraan in wada la sameeyo waxa laga yaabaa meesha inay tahay meel colaadu ku badan tahay isla markaana loo baahan yahay in xasilooni iyo nabadgelyo laga dhowro taasoo dadka oo dhan runtii meel marinaysa noloshooduna ay guul ku gaari karto ujeedada aan ka leeyahay waxa weeye inay gabdhuhu ka mid noqdaan siyaasadda ama haweenku ka mid noqdaan waxay rool weyn ka qaadanaysaa horumarka dalka nabadgelyada dhammaan jiritaanka maxaan sheegaa tiirarka dhaqaalaha ayay ka mid noqonaysaa waayo hooyadu waxay taqaanaa wax guri kasta dhiba ayay taqaanaa maadaama ay wax guri kasta dhiba ay taqaano qaranku waa qoysas la isu geeyey marka sidaa aawadeed waxay garan kartaa waxa qaranka dhibaato ku ah iyo waxa guusha u ah aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan jecelahay inaad ka run sheegtaan oo aad ka midho dhalisaan inaad hankiina siyaasadeed meel gaarsiisaan inaad isku taageertaan oo aydan noqonina tii waxa la yidhi heblaayo waa sharaxantee aabbahay ku galmeena way sharaxaya hadday taasiba sharaxan tahay marka waxa weeyaan had iyo gooraale taasi waxay luminaysaa inay inan keliyii soo baxdo marka run ahaantii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa gabdhaha gaar ahaan kuwa hanka siyaasadeed leh waxaan aad u soo dhawaynayaa in ay fadhiyaan maanta haween tiro badan oo 3 xisbi qaran ka kooban isla markaana dhammaantood da'yar iyo waayeelba u diyaara inay tartamaan oo ay ka mid noqdaan siyaasadda waqtiga dhow ee fooda inugu soo haya golayaasheenna qaranku furmi doonaan tartankoodu kootadu sidii laga dhawaajiyey ina gaari mayso waa 18 kaasi waxay noqonaysaa waa 3 xisbi qaran oo min 6 inaguna waxa lagu qiyaasaa inaynu 65% ay haweenku yihiin sidaa darteed waa lagama maarmaan 18 anfici maayaane inay haween ka tiro badan intaasi ay soo baxaan isla markaana ay ku soo baxaan kartidooda
dadaalkooda iyo iyaga campaignkooda intaba kolley iyo kolleyba waay maysaan wuxuu yidhi inkastaad haybadii hanaawacan tahay hablaha sabankana uguba hufan tahay kolleyba heli maysid hankaad wadato haad iyo dacawaad u halistaa kolleyba waay maysid midku yidhaahda inaadeer anigaa sharaxan dumaashi anigaa sharaxan inaabti anigaa sharaxan laakiin waxaad tidhaahdaan anigaa inaadeer sharaxan oo dumaashi sharaxanne in badan baan ragga u soo codeeya idinna maanta nala codeeya aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin salaamullaahi calaykum wabilaahi tawfiiq